qoyska ugu taajirsan uguna yaabka badan dunida waa qoyska Rothschild. Qoyskani asalkoodu waa dad Yahuud oo taariikh fog leh. Dhaqaalaha dunida boqolkiiba 90 waxaa la rumaysan yahay in qoyskani gacantooda uu ku jiro marka la isku geeyo dhammaan dhaqaalaha adduunka yaala oo dhan. qoyskani lama oran karo sida asalka waa qoys taajir ah, waayo taajirnimadu waxa ay sifeysaa ilaa heer aad u sareeya, balse qoyskani waxa ay la mid yihiinba kelimada lacag. Waxaa macquul ah in telefishinada ama buugaagta aad ku aragtay in badan propagandada iyo xan aad u badan oo qoyskani ku saabsan, balse waxaa la isku wada waafaqsan yahay qofna inuusan diidin haddii qoyskani shaqo ay ugu baaqaan ama ay jeclaadaan in reerkooda uu ka mid noqdo. Dadkani sirtoodu ma aha mid bannaanka si fudud looga heli karo, waa qoys sida dowlad oo kale daafaha dunida ku faafsan. qofna dhexdooda looma ogolo qof ajnabi ah inuu ku soo dhex biiro. Si aan u bilowno qisada reerkani Rothschild, haddii aad ka heshay leeg saar si aan kugu soo badino mahadsanid. qoyskani Rothschild waxa uu leeyahay taariikh aad u fog, waxayna ahaayeen qoys ahludiin ah oo aanan loo ogoleyn in dunida ay dhex galaan. waxaa sidoo kale mamnuuc ka ahaa xirfad inay ka shaqaystaan oo aan ka ahayn in dhexdooda lacaga isdeemiyaan, kadibna qofka uu bixiyo lacag dheeraad ah maadaama in muddo kadib qofka uu lacagtiisa u soo celinayo. qoyskiina arrintani lacag kala qaadashada ahayd ayay xooga saareen iyo bangiyo inay samaystaan. si tartiib ahna waxa ay ku faafeen wadamada Yurub iyaga oo laamo walbo bangi ka furanaya. sidaas ayuuna ku soo bilowday aasaaska dhaqaalaha Yurub in qoyskani gacanta uu ku dhigo. qoyskani si fudud joornaalada maqaasiinka uguma arki kartid dakhliga dhaqaalaha ay haystaan, waxaad kaliya aad ku arki kartaa dadka ugu taajirsan sida Alibaba, Bill Gates iyo rag kaloo caan ah. balse daaha gadaashii dad badan oo qarsan oo sirtooda dunida aanan u soo bandhigin ayaa loo arkaa qoyskani Rothschild inay yihiin. qoyskani kelimada sirta ah iyo wax akhrinta xagga dictionary-ga waxaa loo arkaa dadka keliya ee lagu micnayn karo. sirtooduna qoyskani Yahuuda ah qof kale uma ay ogola inuu soo dhex galo. gabdhahooduna in yar waa hore dhacday mooye si kale qof Yahuudi aanan ahayn looma ogola in uu guursado, waayo waxa ay rumaysan yihiin qoyskani dad aanu ehelkoodu ahayn haddii qoysku uu soo dhex galo qoysku in sida uu ku burburi karo. sidaasi darteeda dhexdooda waxaa mamnuuc ka ah inay isfuraan labadii isguursataa. heerka taajirnimadooduna waxaa la sheegaa in senti walba ee gacantaada soo gala in qayb ay ku leeyihiin qoyskani. dhinac marka laga fiiriyana lacagta adiga kaa baxda waxa ay si toos ah ama si toos aanan ahaynba gacanta ay ugu gashaa qoyskani. sistamka qoyskani iyo in qof walba dhaqaalihiisu qayb ay ka qaataan dabcan aas-aaskeeda qarniyo ka hor waa wax soo bilowday. qoyskani qisadiisu waxaad ku arki kartaa xitaa heerka taajirnimadooda in dowladda Cusmaaniyiintu xitaa in deen ay siin jireen. qoyskani daafaha dunida ama xitaa waddanka aad ku nooshahay waxaa qasab ku ah in ay ku leeyihiin laamo bangi ama shirkado waaweyn oo waddankaaga caan ka ah. dadka qaar sirta qoyskani iyo dhaqaalahoodu marka ay xalin waayeen waxa ay sabab u noqotay in kumanaan aragti oo qoyskani ku aadan in meediyaha lagu baahiyo, sida qoyskani in dunida uu maamulo iyo hurinta dagaalada in qoyskani sabab ay u yihiin. inkastoo tani aanan la hubin, waxaa haddana hoosta laga xaqiiqi karaa in dagaalada dhaqaalahooda uu ku socdo. dagaalkii labaad ee dunida Maraykanka 400 oo bilyan oo dollar ayaa kaga baxday. dabcan dadka gadaal dhanka dhaqaalaha ka soo taageeray Maraykanku waxaa lagu sheegaa qoyskani Rothschild inay ahaayeen. waxaa sidoo kale la sheegaa in qoyskani qorshooyinka iyo isbedelada mustaqbalka adduunka, aragti walba ama project walba ee dunida lagu bedelayo dhaqaalaheeda iyo maalgelinteedu in qoyskani ay u taagan yihiin. qoyskani qasriyada ay ku nool yihiinna waxaa la sheegaa qasri lamid ah in dunida uusan ka jirin. xitaa madaxda dowladuhu qasriyadoodu kama ay soo agdhowaan karaan marka loo babandhigo qasriyada qoyskani. sida imbarator ama madax oo kale, qoyskani dadkooda ugu waaweyn qasriyadooda suurtagal uma aha qof inuu soo booqdo. xitaa madaxweynaha
haddii loo oggolaado oo keliya ayuu xaq u leeyahay in uu soo booqdo. Qoyskani oo fadhigiisa ugu weyn oo Yurub uu yahay ayaa waxaa la sheegaa in Israa'iil iyo meelo kale oo adduunka kala duwanba in qasri ay ugu yaaliin. Waddooyinka qaarkood waxaa loogu magac daray waddada Rothschild saamaynta ay leeyihiin darteeda. Qoyskani waxaa la sheegaa inay yihiin dad aanan laga hadli karin, waxna laga sheegi karin. Qofkii isku daya inuu ka hadlo ama wax uu ka faafiyo, sida horay u dhacdayba, haddii qofka saamayn uu leeyahay, haddii uusan ka taxadirin meel uusan ka filanin, ayay ka ugaarsan karaan. Dib dambana meediyaha ama cid kale oo ka hadli karta oo dunida maqalsiin kartaana ma ay jirto. Waa sababta xitaa looga yaabo maanta ka hor in aadan qoyskani maqlin, sababtoo ah dadka ka hadla khaasatan saxafiyiinta waxaa sugaya waddo aad u dhib badan. Qoyskani qaanuunka iyo dowladaha dhexdooda waa dad lama taabtaan ah balse aanan muuqan. Madaxda ayaaba dadkani maadaama dhaqaale ay ku taageeraan waa dad lama taabaan agtooda ka ah. Waana qoys runtii mar walba aasaaskii wax walba dunida waa hore ku faafay inta dowladuhu ay la heshiyeen. Qoys soo bilowday taariikh aad u fog oo xididka guntiisu way adag tahay in la gaarana adiga ku fakar inta awooddiisu ay la eg tahay.